السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا جعلها ميل walbo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamij yar oo kooban kaas oo aan uga hadlayo degmooyinkii maanta laga xureeyay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab subaxnimadii hore ee saaka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa la wareegay degmada Galcad ee ka tirsan gobolka Galguduud sidoo kale duhurnimadii maanta maleeshiyaadka al-shabaab ayaa lagala wareegay degmada Xardheero oo muhiim u ahayd kooxda al-shabaab war hadda soo dhacaya sidoo kale sheegay in maleeshiyaadka al-shabaab laga saaray degmada Caleer ee ka tirsan gobolka Galguduud waxaa muuqata in maanta kaliya maleeshiyaadka al-shabaab laga saaray deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka Galmudug tan iyo markii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay kacdoon ka dhan ah maleeshiyaadka al-shabaab waxaa al-shabaab farahooda ka baxay in ka badan 10 degmo iyo deegaano hoos yimaado waxaa muuqata al-shabaab inay sii jabayaan maadaama ay dhibaatooyin fara badan ay u geysteen shacabka Soomaaliyeed degmooyinka Xardheere Galcad iyo Caleer maleeshiyaadka al-shabaab waxay ka talinayeen in ka badan 10 sano waxayna dhibaato fara badan u geysteen dadka ku dhaqan degmooyinkaas iyo deegaanada hoos yimaado al-shabaab ayaa shacabka Soomaaliyeed ku dhiiradeen markaan inay iska saaraan waxaana muuqata al-shabaab inay jabeen maalmaha soo socda waxaa la filaynayaa in dib-u-xoreyntu ay ka bilaabato koonfurta bartamaha Soomaaliya sida Jubbooyinka Shabeellada Hoose iyo Bakool waxaana taas sababay Ilaahay ka sukow madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo faray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya inay maleeshiyaadka al-shabaab ka dulqaadaan dadka shacabka ay dhibaatada ay ku hayaan waxaa muuqata al-shabaab inay jabeen maadaama maalmihii la soo dhaafay la arkayay in xataa xoolihii ay si sabab la'aan ay u qalayaan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijyadeena soo socda wixii ku soo kordha dagaaladaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.